nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tirahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino qorraxdo aroortii qaybisay falaadha maqaansa roobaad daruur midab ku qarisay abwaankii heestaa sameeyey brofeysar cabdulqaadir maxamed shirwac ayaa shirka hobyo waxaa loogu doortay madaxweynaha beesha nabadoonka soomaaliyeed war beesha yeeli mayna ma madaxweyne gaar samaysad nabad iyo noolal markay qaybisay gobolada galmudugna ay aaday wax kale miyaa u harsan dulmiyaad wadda iyo dadku waxaanu yeelayn meeshana waad ku dagan tahay doqonnima ku hayse arooya beriga xaa soo yeerahe warwarka waad iga dhex gasheene shirkii hobyo waa la soo xidhay maanta war shirkii dhuusamaraa ma furmay yaaya wax la xidhaayo iyo wax la furaayo badanaa beriga waana waxaan dhihi lahaa shirka yaa abaabulay shaxda xeerka yaa garan shufeerkiisa waa kii war shirkaan nabadii nolol looguma soo horjeede adiga maxaa ku waale wareer kalmaanow waxna ma akhrisataana tiifiga qaranka soomaaliya maanta waxaa lagu qoray afkii aadan isaaq dhegayste hadhawayke ra-iisul wasaarikey soomaaliya xasanow caliyow khayre ku dareertay magaalada baydhabo may banaafilayna dhowaan inaynoo koyto inta kalena mida isaaqan u dhaafi hadhowaaw ga'ama furun haka dhowaaw biigowebna haka dhowaaw eleenga lekiindeediyohay yak jartii waryahana saku tabti reetowaawna niingobana haddii reer koonfur gargabeed ena maamul goboleedka jeebleengna na ertan luuqada maaymaygana ino tv-ga qarankalika agriyoona isan warka musug ee kasheentan mana gobata warya ee may weelasan dastuurka dib in agriisada baalis sagalaad fakrada hoosay siyaasada hoosay war adeera Soomaaliland haddaanu nahay Suudaan iyo Soomaali waxa ku hadasheen annagu kala garanba mayno war waxa soo waxay u darneed gabadha comment ka dhibatay waxay tiri ilaahay wuxuu igu gargaaray cid reer baydhaba darsila war ma haysaane waftigii Soomaaliya uga qayb gali lahaa dhageysiga maxkamadda dacwadda badda waxay joogaan heeg ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda hogaaminaya waftigii Kenya wali ma imaan marka Soomaali waxaan ugu baaqayaa meel kasto ay joogto maxaa Soomaaliland arinta dacwada badda dawladda Soomaaliya in lagu garab istaago kala soclaan waxyaabihi la isku mucaarad jiray iyo siyaasad ma aha waa qadiyad Soomaaliyeed war dadkaadu baaqayso Soomaaliland iyo Jubaland ma ku jiraan war adeer waxba garan maysidee ninka hogaaminaya wafdiga waa Khadar Maxamed Guuleed waana nin Soomaaliland ah qowdina hadii dacwada nagu taageerin imaaraadka boqol wadan iyo dhaxays aabada yaradin ku qabsan doon markaas waxaan ka baqaa inay Soomaaliya soo xasuustaan laandeeyo badan cadow badana war waxaan maqli jiray dawlad xumo dawlad la'aan ay ka roontahay war timiteelteela bidaara garoon warwarka naga dhax gelinne maanta haddii aan dawlad la'aan ahaan lahayn Kenya baddaas cid kula dooda ma jiri lahayn dawlad ma xumaate dadka xun ilaahay waba kuma xumaadaane dadka xun waranu Kenya waxaan oran lahaa alla weyn ninkii aamina awoodle awmad wariba ayaheeda inay garato iyadaali dhulninkiisiba iskale dhulninkiisiba iskale badninkeediiba iskale badninkeediiba iskale waa inuu Kenya waxaan dhihi lahaa looda iyo hawootay haddaad loofarnimo keento laguug iyo lag aan kaa diliyo wadar ulayntaada kama labalabeeya dhaqsan waranka looshtaay waana tan hortii luuman jiray lahamka kaagaay ludda iyo maqaarka iyo laftaan kugu liqaayaay hallugoon lixadkii ma lumin aan lahaan jiray abwaane aadi eedaan ma hadsanta laakiin doonfaardada waa Kenya siday uga wadiina waxaad ilowday abwaane waa laasiga arkaa waa selolata war anugu waligay ma arkin dad maalin kasta intii la raba laga dilayo badu dooday adinka koor war mudug dad dhiig lahaa ka imaan jiray hankoolka galmudug say wax ka yihiin hooyna mugadle maayada ana hadda ka soo baxay malaayan wata bilaayna ma soo arkinay waxa uu sheeshoogiisii maxaa way waa la xadhukan abaarmoog mid ka ahani dhulninkiisiba iskale dhulninkiisiba
iskale runtiisu waa beledka unukaa iskale dulmilowgiyo tuugiyo kuwa doolarka qaatoo dusdusowga yaqaanoo debya gaas isku geeyo labada geelba la daaqa isku soo wada duube farriin baan dirayaaye waryahoy dabcigiinnu wuu ka sii darayaayoo dulli baadna badeenoo dulqaadkeenni dhammaaye dilalkaa shacabkeenna duhurkii alla keeno shanshan laysku dul saaro haddaydnaa naga daynin amaydnaa naga duulinoo dabadaan naga aadin bal daryaanka rasaasta iyo berri toola dagaalka iyo sida laysku duqeeye digta yeedha dhegaysta olaninga gayliisidii nayow noo rog niyow dalkiina u shaqeeya war allah idin dhowre naga taga